السلام عليكم أصحابتا وإذن سلامي دمانتينا جمعة مبارك فيديوغان مانتا أو جمعة صبحي أيو أها لكن حلي دنباهات لغيابا إنا سو ديغو سو مركا محال لهاي اسكولكا ماجيدا سو مرني إنا هور سو ودنو 4 ساعة صبحنمو ماجيد اسكولكا كسو بحا jadwalkiisa inuu isbedela laga yaabo 6 bilood oo soo socota laakiin haddeertaan maxaa lahaayay 4 saac oo kasoo baxaa waa soo baxnay waxaa u soconaa maxaa lahaayay iskoola maahir u rabay oo bareefad ah oo aniga inaan geysto bareefad oo luqadda ingiliishka ku baxaayo ayaa maanta rabay inaan soo fiiriyo soo iskoolka maxaa lahaayay qorshihii hore aniga ugu socday ogaa iyo waxa meesha kala soo kulmay labay kala noqdeen insha Allah waan idinkaga dhici doonaa maahir horta waa kaasa maahir waxaa sababta hadda iskoolka aan degdeg ugu geyn rabo waxaa waaye maseerka adduunka hadda 4 sano u dhamaanaysa maseerka adduunka maalintuu maajid iskuul bilaaway ilaa ay hadda asagana waxaa ku dhahay subaxi salaamu calaykum waaba soo jeedaaba nin iskool aadaya camal meeshaan qadada ku dalaacaya marka idinkaga dhaco sheekadii waxaa islahay maxal lahaayay waqti ay qaadanay marka iskoolka maajid oo kaleeto inuu helo process dheer ay qaadanaysaa soo process dheerkaana markaa canuga fiiriyay xaaladiisii waxaa islahay ma sugi karo canugan iskool maxal lahaayay hadda sanad kadib la diiwaan geliyo jawaab la sugaayo waxaa isdhahay iskool adiga iska geyso oo maxaa lahaayay lacagtaadan iska baxso marka waxaa isdhahay maadaama aaba lacag bixinaysid luqadda ingiriishka wax ka fiican ma lahan sidaas darteeda marka bareefad xaafadda ku yaala waa bareefadkaana la ii sheegay qorshihii hore oo la iigu sheegay in 3 bilood saddex bilood lacagtiisa loo bixinayo soo 3 biloodna maxaa lahaayay iska tahay lacag macquul ah laakiin meerka meesha tagay waxaaba la kulmayba wax kaleeto first one maxaa lahaayay markaa su'aalihii aan su'aalnay warqadayna siiyeen oo jadwalka iyo nidaamka iyo lacagta iyo wax kasta ay ku qoran tahay soo maxaa lahaayay sida caadiga ah maalin kasta hadii oo maxaa lahaayay canuga uu maalin kasta imaanayo maalin kasta maahan isbuuc 2 jeer aniga qaldan maalin kasta ani ugu qufulneed horta waxaa jeclaa ilmaha maalin kasta inay iskool aadaan isbuuc 2 maalin oo bishiina maxaa lahaayay $100 ku dhawaad isbuuc 2 maalin bas bishiina lacagta maxaa lahaayay hadda sheegeen waa $100 adi $85 meelahaas soo marka anigana qorshahayga hore aan ku maqlay marka maxaa lahaayay wallahi waa kasii nujiyay qorshihii aan ku socday yani sida aniga u maleynayay hadii ay dhihi lahaayeen xitaa $200 oo 3 bilood ah xitaa maybe oo macquul iska noqon lahayd laakiin bil kasta $85 isbuuci 2 maalin waxa waaye mush macquul ila ma ahan soo maxaa la dhahaayay insha Allah mid kale ina u raadiyay noqonaysa iskuulkii horta xaaladiisu waa sidaas qadadina saanay ku soo dhamaatay soo dhawaada idin leeyahay dhamaantiina dhibaatada jirta waxay tahay wadankan Ingiriiska sidii dahabka oo kala waay hadaa raadisid iskool bareefad ah oo banaanka maxaa la dhahaayay waxa waaye lacagtooda too much soo maxaa la iskooladka dawladana waa balaash waa lacag la'aan balaash yani oo anaga maxaa lahaayay xageena oo anaga ahaan ma ahan laakiin lacagta oo iskoolaadka dawladda lagu barto waxa bixisa maxaa lahaayay UN ta dadka ka bixisa ma ahan wax oo free guud ahaan dadka wadanka ma aqaano maybe ayga naftirkooda maxaa lahaayay inay wax bixiyaan waa laga yaabaa laakiin anaga oo kaleeto lacagta ciyaalka waxa ka bixisa maxaa lahaayay UN ta iskool maanta hadaa dhaho oo English ii geeyana nag ma yeelayaan oo sababtoo ah maxaa lahaayay waxay diidayaan lacagtaas tirada badan leh meesha hadda canuga bil la leeyahay $85 kuwa dawladda waxa laga yaabaa bish sanadkii dhan $150 oo canuga wax ku barana sanadkii dhan $150 ee canuga ka bixinayaan marka sidaas darteeda ayga u leeyihiin waxaan